waxaa jiray waqtigii nabiga in la jamciyo quraanka hal musxaf lagu qoro mawaanic diideedo mid ahayn waliba koow quraanka nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa u qori jiray horta saxaaba badan oo culimada ay gaarsiiyeen ilaa 20 oo khulafaa u gaarsiiyeen afartu ay kamid yihiin waxa lagu qori jiray waxay ahayn lafo sida garab maqaaro qolfo geed lama arag wax warqaba qof kastaana wuxuu og yahay inaysan suurtagal ahayn lafo inta la isku keenay ama dhagxaan yar yar oo qafiifana lagu qori jiray in musxaf laga dhigo qof kasta waa fahmi kara suurtagal ma warqad lama hayn waa koow labo quraanku waa degayay marka aayadu soo degto nabiga dhahay sallallahu alayhi wasallam aayad hebla gadaalkeeda aayad hebna ka hormar halkaas galiye qaara la nasaqay markaas laha kaas waa la nasaqay musxaf diin tal heli la ma dhici karin lama hayn warqade la qoro ee aayad ama suurad la nasaqo hadana hal googooyo miya hadana markay soo degto halka la gelina mid soo degto mawaaniicdaas jirto suurtagal ahayn markii nabiga ilaah oofsaday ee wax weeyaan muqtadi ama ciladina ay timid oo loo baahdo la yiraahdaan quraanka la jamcin quraanka inuu lumo aan laga cabsanaa mawaanicdi waa suushi quraan dambe soo degima quraan dambe la nasaqi ma warqada lagu qorana waa la helo siina laga helo warqada adag aan la helo oo lagu qoray quraanka waxa suurtagal gashay quraanka in la jamci karo warqadii lagu jamciyo mawaanicdina waa suushay muqtadiga iyo ciladii loo jamcinayana waa la helo sidaas lagu jamciyo ثانيا يا جمعيه waxa jamciyay as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar saxaabada nabiga uma kala harin Abu Bakar iyo Umar Abu Bakar amarku lahaa oo imaamka muslimiintu ahaa Umar talada bixishay laakiin dhamaan way waafaqeen isuma khilaafin in la raaco saxaabada ilaahay baa janna ugu balan qaaday was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar waxaan ku qaadanay musxafka la jamciyay diina uga dhiganay ilaahi weynaa aayadaas uu noogu sheegay raacidda la raaco as-sabiquna al-awwalun in jannada iyo rilada rabbi lagu gaaray waxaan ku qaadanay musxafka la jamciyay diina uga dhiganay nabi maxamedna amray inaan raacno sunnada khulafaa rashidin oo yiri calaykum bi sunnati wa sunnati khulafaa rashidin sidaas ku qaadanay billahi calaykum mawlidka oo ay soo dirisiyeen ubaydiintii nimankii faadimiinta isku magacaabay been abuur iyo dadka qalda ee sharta adduunka ku soo kordhiyay muslimiinta dhibay ee gaareen fasaadkoodu marka khudbada la akhrina yiraahdaan magaca ninka markaas jooga ee xukuumadda hadii la soo qaado loo sujuudo nimankaas waxay soo dirisiyeen iyo Abu Bakar iyo Umar amalkoodu in la sameeyo Madiina billahi calaykum mas'uuliyada waxaan ogaanay saxaabada ilaahi weynaaya in la raaco noo sheegay in wadaag ay tahay nabigana na amray ciidiin ya na amray mas'uuliyada tan labaad mawlidka cilada loo sameeyna waxa la yiri waa nabiga jacaylkiisa iyo weynayntiisa waqtigii nabiga waa jirtay waqtigii saxaabada waa jirtay ciladaas wax maanic oo diidayana lama arag mana la sameey haduu marka khayr ahaa iyaga sameeyla idan ka xaakim bal noqdo ma isku mid ah mawlid iyo musxafka la jamciyo